taas aanu qaylo badan baa laga yeeshay dadkii laga raday horta waxaan idin sheegayaa waxaan la hadlayaa anigu la hadli maayo goboladan iyo waxa kala hadlee jimcada quruuma ka dhaxaysa qaybta la yiraahdo ocha oo aad uga hadashay waxaan filayaa waxa ay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka qaxay aanay wax u qabanaynin oo aanay dadka kale beeraha ku xirayaan aanay wax u qabanin dadkaasi waxay yimaadeen iyagoo cayro iyagoo qaxootiyo baydhabo ka yimid iyo meel ka fog 3 sano ka hor maalin qura boodbiya ma siinin maalin qura bac ma siinin maalin qura kiniin kaneecada iskaga ilaaliyaan ma siinin 30 sano maxay ku darsadeen maxay u qabteen hadday ocha ka naxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu soo waayeen maxay u gargaari waayeen ocha maxay maanta uga qaybisay waa laba wajiilanimada jimciyada quruuma ka dhaxaysa marka ay doonayso dawladaha lacagta leh ee hantida leh u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanaya in laga sameeyo dadka iyaga aanu ka rarnay ascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono ojo iyo jimciyada quruuma waa ku ceeb caalamkana way ku qaldaya gobolada kale aad u hadlaya ee dadkii baa la xumeeyay oo waanu soo dhaweynaynaa ee ka mid ah Soomaaliya waxaan leeyahay 30 sano joogeen qof qura oo reer Baydhabo oo Soomaali galbeed koonfur oo lagu dilay Soomaaliland ma jiro qof qura oo xaq darro loogu sameeyay sidoo ka sanadood oo lagu dulmiyay oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameyay lama soo helayo Puntland oo aad durbaaka u tuntay baalin quray 17 canug oo 20 gaarin intay soo qabteen yiraahdeen dil baan ku xukunno iyaga wax dilayay haddana maanta uu lahaa waa soo dhawaanaya bacbaan siinaya 17 ka irin ma waalidkood baa joogay ma maxkamadda soo ogaabay ahayd yaa maxkamadda ka qiraar ahaa kii soo qabtay kii dacweeyay kii xukumay kii dilay isku mid bay ahaayeen ma garba heleen qolada Soomaaliland Baydhabo joogta sanad aan lagu dilin Boosaaso iyo Puntland meel dadka koonfur galbeedkeeda ma jirto xamar iyada ka hadli maayo af lagu hadlaabo inoo banaano meel dhiiga bini aadmiga laga baaxitirayo in maaluba dad la laayo hadda la ilaawo dhintaan aynu wax kala ku doono xamar baa jirto ka hadli maayo kuwa ugu dulmiga badan lagu laayaana waa dadka koonfur galbeedkeeda maxaa ka dhacay Baydhabo maadaama aynu dawlad taag daranahay oo dhaqaale badan lahayn dadkana ay bateen jimciyadii quruuma ka dhaxaysanaa dayacday oo u sameyn weyday wax taakuleynay siiso qolada u qayranaysa imika ee joogta Baydhabo ka madaxda iyo kuwa xamar ka yaqaan ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu hadday nolol ka helayaan oo ammaan ka helayaan iyaga daayacay oo u ooyay imika oo annaga nasaariya eed aanan lahayn carruurtii wax magartay ay ka dhageysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan heleen ma yimaadeen inuu deegaanka joogaa iyaga dayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kara weyn miisaankooda nabadgelyo ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kara weyn maxaanu sameynaa marka in ka badan 30 gaari baa la saaray gaariga tiro go'an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxa la saaray 10 koosaradood tumira iyo 10 caag kartoon oo biyo ah iyo waliba wixii dawo loo baahday gaari walba oo dadka qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari kasta soo gaari waxaanu raacinay ciidan technical oo ammaankooda suga ilaa intay nagala wareegayaan Puntland qof qura iyo ilmo yar oo qodax xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay 2,000 ee qof inta leeyaanu qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaarsiinay halkii aan la doonayo dawladdoodii bal waxa ocha u qaylinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qaylinayaan ee dad baa la xumeeyay maxay tahay taa intaasoo warar ku dhaafaya